way arrin culus ayaa ku soo kortay arrinka dagaalka Iran horta ninka dhabarkay ka muuqdo ee ujeedaan waa gudoomiyaha baarlamaanka ee Iran way hadalkan uu soo qoray waa tifaftir doona waa hadal culus dabcan iyo sidoo kale mid ka mid ah xildhibaanada ugu caansan Congress-ka ku jira Mareykanka oo waliba aad iyo aad uga dhow Donald Trump ayaa ayadana maanta hadal waa daqiiqada ka hore waxay soo qortay hadalkan oo laga dareemayo dhan walba markaa ka fiirisid in dowladda Trump ay qaadatay go'aan ah in duulaan dhulka ah ay ku qabsato mid ka mid ah jasiiradaha Iran go'aankaas in la qaatay labadan arrin ayaa noo cadeynayso ku bilowna gudoomiyaha baarlamaanka ee Iran gudoomiyaha baarlamaanka Iran Twitter leeyahay Twitterkiisu ama hada waxa loo yaqaan X ayuu wuxuu ku soo qoray waxaan dhabarkii ka muuqdo wuxuu leeyahay sida aan ku aragnay xogaha qaarkood xogo cadowga Iran dabcan waxa kooda Mareykan Israa'iil ayagoo waliba kaashanayo mid ka mid ah dalalka dariska ah aniga waxa u fahmay ama Kuwait ama Imaaraat Arab labadaas midood waay markuu wuxuu leeyahay dalalka cadowga ku ah Iran iyo mid ka mid ah dalalka dariska ah ayaa waxay go'aansadeen in ay qabsadaan mid ka mid ah jasiiradaha Iran waaya dhamaan dhaqdhaqaaqa cadowga si hoos ah oo la soconaa leeyahay asaga ciidankeena si dhow oo isha ku hena waaya haddii qadka ama xadkooda ay ka soo gudbaan sawirka meesha ka wareejiyo waxay leeyihiin wuxuu leeyahay haddii arrinkaas uu dhaco ama xadkaas la soo gudbo meelaha muhiimka ah ee xasaasiga ah dalalka dariska ah dhamaan qaliishku ka wadaa ayadoona waliba wax xadidaad aan la sameyneynin waxay noo noqon doonaan martilmaameed way kaasna wuxuu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka ee Iran way oo si toos ah noogu sheegay in ay heleen xogtaas oo sheegayso in duulaan dhanka lugta ah loo diyaar garoobay in lagu qabsado mid ka mid ah jasiiradahooda dabcan xogtaas waa heleen jawaabta ay ka bixin doonaan wuu noo sheegay wuxuu yiri aago dhan dukumdaakuma ka dhigana way dib loogu soo celin Nancy Mace waa gabadhan waa xildhibaanad ka mid ah xildhibaanada jamhuuriyiinta oo isku xisbi yihiin Donald Trump waliba aad isugu dhow yihiin Trump waliba dagaalkan socdo qaybtan xasaas way dhiga furo dagaalkan socdo iyo duulaanka Iran lagu qaado way taageertay laakiin hadda hadal naxdin leh soo qortay maanta waxa dhacay wax loo yaqaan briefing saraakiisha militariga Mareykanka ayaa waxay qol la galeen qaar ka mid ah xildhibaanada Congress-ka ee Mareykanka qol la galeen briefing ay sameeyeen wax loo yaqaano yani waxay u soo jeediyeen talaabooyinka xigo iyo wax la qaadi doono marka waxaanay soo qortay waxay leedahay ma ogolaan doono ciidan lugta oo Mareykan ah waliba gaar ahaan South Carolina gobolka ayada ay ka imaato wiilashii iyo gabdhaha in sidii Ciraaq oo kale sheekadan ay noqoto oo aan galno lugta meesha la geliyo waa diidanahay marka dhan walba ka fiirisid waxaad dareemi kartaa saraakiisha maanta ee la shirtay ee Mareykanka ee qolka ku jiray ee shirkan waliba aan saxaafadda loo ogoleen in loo sheegay wax kasto aan sameeyay waxba way tiri waayeen waxa u muuqataa in ay lama horaan tahay ciidamadeena lugta oo ku Mareykanka ina dagaal ka gelin ayadana way ka soo horjeedaa marka xisaabta marka isku dirdirtid waxa ku cad in Mareykan uu go'aansaday dagaal lugta ah inuu ku qabsado si uu fahmaan in jasiiradan Kirk inuu ku galo waaya dabcan Iran xaaladeeda waa u jeedaan oo ciyaar ma aha marka adiga intaas soo kortay gudoomiyaha baarlamaanka Iran oo arrinka noo sheegay sirta uu soo helay iyo briefingan maanta dhacay wixii dhan marka isku dirdirtid u muuqataa dagaalka in waji kale oo cadaab ah u galay